iyadoo maamulka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland uu soo magacaabay xogayo cusub ee degmada Buurtile Cabdiweli Cabdille Faarax ayaa maanta waxaa ka dhacday munaasabad kooban oo xilkii kula kala wareegayeen xogayihii hore degmada Buurtile iyo xogayaha cusub waxaana ka qayb galay munaasabadda gudoomiyaha degmada qaar ka mid ah golaha deegaanka degmada iyo waxgaradka degmada waxaana xilkii u kala wareejiyay gudoomiyaha degmada Buurtile Maxamed Maxamuud Axmed ugu horeyntii waxaa munaasabadda ka hadlay xogayihii hore degmada Buurtile Cabdinuur Axmed Calas wuxuuna sheegay inuu xilkii ku wareejiyay xogayaha cusub ee degmada Buurtile Cabdiweli Cabdille Faarax ee dan uga bariyay inuu alla u fududeeyo hawshan loo egmaday xogayaha cusub ee degmada Buurtile anigoo Cabdinuur Axmed Jaamac waxaan maanta ku wareejinayaa taariikhdu ay tahay 8 bishii koowaad 2018 xogayaha cusub ee degmada Buurtile Cabdiweli Cabdille Diray waa soo dhaweynaynaa xogayaha cusub waa jecelahay waana soo dhaweynayaa aad baan ula shaqayn doonaa haddii alla idmo aad baan ugu faraxsanahay inuu yimaado xogayo cusub muddaan kasoo shaqaynaynay degmadan runtii hawshaana hawl baaxad weyn oo dhib badan weeye ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay inuu fududeeyo xilka uu qaaday xogayuhu dhanka kale xogayaha cusub ee degmada Buurtile Cabdiweli Cabdille Faarax ayaa dhankiisa sheegay inuu xilkii la wareegay sidoo kalena sheegay in aan kaligiis waxba qaban karin haddii aanu helin dad si cadaalad ula shaqeeyo maanta ay bisha 8 bisha January 2018 waxaan cadeynayaa inaan Cabdinuur Axmed Jaamac kala wareegay xilkii xoghayanimada waxaan uga mahadcelinayaa waxqabadka uu soo qabtay aniga waxa la igmaday xogayaha dawladda hoose runtii ma aha shaqo aan aqaan aniga shaqadeedu waxay ahayd arday waalid iyo sidii loo maamuli lahaa haddii aan helin mujtamaca reer Buurtile maamul council odayaal waxgarad Buurtile waxaan ka qaban karaa haddii aan la helin cadaalad sinaan isku duubnaan tixgelin samir dulqaad iyadana wax Buurtile ka soconaya ma jirto aniga hadda run baan sheegayaa shataygu waa nadiif magaalada Buurtile sumcad weyn baan ku leeyahay mar rabo sumcadeedu inay kor u kacdo maaha inaan sumcadeeda dilo waxaan ku diyaar u ahay oo ilaahay horta iska ballan qaadayo iyadaan nina idhaarsanin inaan dalkayga iyo dadkayga si daacad ugu shaqeeyo haddii aan waayo bil gudaheed ama 15 bari gudaheed waxaan u sheegayaa wasiirkii sharafta lahaa ee magacaabay iyo xubnaha kale inaan istiqlaal dhiibiyo geesta kale waxgaradka degmada ayaa iyaguna soo dhaweeyay xogayaha cusub ee degmada Buurtile kana codsaday bulshooyinka reer Buurtile inay si wada jiraan oo la shaqeeyaan xogayaha cusub ee degmada Buurtile haddaan nahay odayaashii degmada Buurtile oo goob jooga ka ahaa xil wareejintan xogayihii cusba lagu wareejinayo Cabdiweli Cabdinuur Axmed Jaamacna laga wareejinayo waxaan rabnaa haddaan odayaashana inaan soo dhaweyno xogayaha gacmo faran ku soo dhaweyno waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshooyinka reer Buurtile waxaan ka codsanayaa qaybahooda kala duwan in lala shaqeeyo xogayaha cusub iyo maamulka degmada in lala shaqeeyo ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo afmeeray xilkana u kala wareejiyay xogayihii hore iyo xogayaha cusub gudoomiyaha degmada Buurtile Maxamed Maxamuud Axmed wuxuuna sheegay in dhammaan lala shaqeyn doono xogayaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Buurtile maanta ay tahay taariikhdu 8 January 2018 sida ujeedaan waxaanu xilalkii u kala wareejinay xogayihii hore ee dawladda hoose ee degmada Buurtile Cabdinuur Axmed Calas iyo xogayaha cusub ee hadda xilka la wareegay Cabdiweli Cabdille Diray xogayaha cusub waxaan leeyahay bulsho weyn ay ugu horeyso dhammaan saraakiisha dawladda hoose xisaabiyaha iyo qasnajiga iyo dhammaan waxyaha kala duwan ee dawladda hoose iyo shaqaalahaba inay si dhow oo daacadnimada ula shaqeeyaan xogayaha cusub soona dhaweeyaan xogayaha cusub Cabdiweli Cabdille Faarax ayaa ka mid ahaa barayaasha ugu caansan degmada Buurtile wuxuuna muddo dheer ku dhex jiray bahda waxbarashada Puntland waxaana uu ahaa maamulihii dugsiga ummadda ee degmada Buurtile Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile